ومحي نيو وورلد اوردر كمعنيش waxaan ka cabsanayay inaad daashaan waayo waxa manasadan uga barateen niman culama oo kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga ku akhriya annama la aqwal al kafara ayaan idin dabaalsi afwan mawduuca leeydi baa nooca noqday waxa la weydiiyay naam shamaskay baa leeydi maxaa looga jeedaa wuxuu yiri waxa looga jeedaa aniga raayigayga inay dunida dhaqaalaheeda qabsadaan saddex qolo majaalka askariga ana qolo quri qaadato sidaan u fahmayaa buu waa nooca dunida dhaqaalaheeda saddex qolo wuxuu leeyahay waa Mareykan Jarmal iyo Japan saddexdaas inay dunida dhaqaalaheeda ku heshiiyaan oo iyagu hogaamiyaan caalamka askartana xoogana inay dunida qolo quri qaadato sidaan u baan u fahmayaa buu intu sii waday buu wuxuu yiri الولايات المتحدة إني أهجان سمادان دول كيرير النفوذ كذا عسكري أما ودد ميليتري سياسة ده الراعات أو وضع كيرا كهر يمد له جورا عصد العراق له جورا عيبوري أو أيوسع عبطمان كوا دوري قاطيا شيء أهبوري بريطانيين يا كوا لنا عام إنجليز كوا وحلا نوعا كاس باوحوي هيبوري أستامها عاد يعني كنت المامي كرنا إنه ليه هاي النظام العالمي الجديد حزب العمال أما ليبر بارتيجا إنجليز نيجي نايب كاها دين ستالي أي واحد يدهن بلدنا معنا نيو وورلد اوردر كوا محيبا يدهن النظام العالمي الجديد وحولي بوش مركيو كجدا واتشيي وحي اللي يدهن الأمم المتحدة هنا عقوبات عراق دوشا كسارته وإسنا كل واقعي نظام عالمي جديد ومداها الدنيا بيوري إن بدن بيقر رياض ضا استلي رجع صبا صباحي لكن وحنا كسونا نيبوري حرب الخليج أي وحي نوع عدي إنه النظام عالمي جديد كل لنا يبوري في الرحم لكاذيب إنه يهي حقيقة أنشري وح رحم كبان تقول شبوري وينيات كمريكان كوبابوري مركي هربا waxay u socotay inay xoogga Ciraaq ku isticmaashay umay soconba nidaam caalami jadiid iyo nabadgeliyo waxa kale la sameeyay misaladu ninkan tilmaamayo waati mala tarikada markii lagu heshiin waayay Paul Kinch miyaa la oran jiray ra'iisul wasaaraha Australia ayaa wuxuu lahaa reer galbeedku buu yiri دول العالم الغربي هشيس كوها حرب الخليج بول انت الشيران اي واحد كهشيين بول انه عراق طاغيش وماشي مدحكا هادو ان للردين قرار كاسي وحا بول قرار الاكثريه اما الدول الغرب اكثريه سيده قبطي